mid kasta oo inaga mid ah inaga waxa uu jecel yahay inuu ku noolaado nolol fiican oo macaan oo farxad leh. Farxaduna waa baahi uu doonayo qof kasta in ay noloshiisa ka mid ahaato. Haddaba waxaan ku hayaa walaale 20 xeeladood oo haddii aad samaysid aad kor ugu qaadi karaysid farxadaada nololeed ee maalinle. Kusoo dhawaada channelkeena Audioso, fadlan like, share iyo subscribe, dhiirigelin ayay noo tahay. Farxadda iyo raynrayntu waa shay ah baahida qof kasta, waana wax uu jecel yahay inuu xaqiijiyo goob kasta iyo goor walba. Qof kasta oo inaga mid ah waxa uu leeyahay nooc gaar ah oo farxad ah, taasi oo ku xiran sida uu farxadda u rabo iyo sida uu u arko. Mid ayay tahay farxadda halka uu ka helayo inuu helo lacag badan, ku noolaanshaha nolol sare, raaxada iyo iibsashada shayo qaali ah, ama xirashada iyo iibsashada dhar qaali ah. Mid kale ayay tahay farxadiisu u dhawaanshaha iyo la noolaanta qofka uu jecel yahay. Ku kale ayay tahay farxadiisu u sarreysa inuu tago magaalo cusub ama meel cusub. Kuwa ayay tahay farxadoodu inay dhameystaan waxbarashada, darajooyin sarena ay ka gaaraan ama booso sare oo shaqo ah ay helaan. Wax badan ayay dadku u arkaan farxadda, waxaana ay farxaddu ku xiran tahay caafimaad qabka jidhka iyo caqliga. Waxaana ay dadku in badan u janjeeriyaan farxadda helidda wax badan oo iyaga agtooda qiimo ku leh. Sidaa darteed haddii aad doonaysid farxad la noolow caqligaaga adiga oo kaga fakaraya hanaanka mustaqbalkaaga, iskuna dayaya inaad baratid hadafkaaga, waxaad jeceshahay diilooyinkaaga iyo dhigista xeeladaha aad ku gaaraysid halka farxadaadu taal. Tusaale ahaan, gaarista iyo xaqiijinta hadafkaagu waa guusha, kadibna farxaddu waa goobjoog. Ka hor hadda ma maqashay ereyga ah horumarinta xeeladahaaga shakhsiyadeed? Suuragal ma yahay sababtoo ay waa yar tahay inta lagu barto dugsiyada, jaamacaadka iyo iskoolaadka, balse waa mid ka mid ah furayaasha farxadda iyo guusha. Ahmiyadda ay leedahay horumarinta xeeladahaaga shakhsiyadeed. Horumarinta xeeladahaaga shakhsiyadeed kolka ay horay u socdaan, waxaad dareemaysaa inuu jiro farqi weyn oo u dhexeeya noloshaada hadda, kadib iyo ka hor. La'aanteedse waxaa suuragal ah in ay kugu dhacdo guuldarro dhan walba ah, sida shaqo la'aan, ikhtiraacid la'aan, saaxiib la'aan iyo xitaa fikrad la'aan. Tusaale ahaan, markii aad u baxdid kulan aad shaqo uun ku dalbanaysid, waxaa laga yaabaa in lagaga soo celiyo garasho la'aanta ka haysata horumarinta xeeladahaaga shakhsiyadeed. Haddaba waxa aan kuu hayaa walaale saaxiib 20 xeeladood oo aad kor ugu qaadi kartid farxad ku noolaanshahaaga joogtada ah. Lambar 1, u gaariyeel waqtigaaga qayb ka mid ah cibaadada. Haddii aad doonaysid inaad ku noolaatid farxad, ka bilow gudashada waajibaadka lagu abuuray oo ah cibaadada. Lambar 2, awood u yeelo u dulqaadashada falcelinta dadka samaan iyo xumaanba. Falcelintu waa mid faa'iido u leh mustaqbalkaaga guusha. Marka ay jidho falcelin ah in wax xun lagaa sheego, ma ahan dhib lagu geystay, balse waa fursad la rabo in aad ka faa'iidaysid. Khaladaadkaaga iyo ceebahaaga bannaanka yaalana aad dib ugu sixi kadib. Lambar 3, awood u yeelo maqalka wanaagsan. Hadalka iyo sheekooyinka dadka kale waxaa suuragal ah inaad wax badan ka baratid. Sidoo kale waxa aad ku kasban kartaa saaxiibo badan, sababtoo ah dadku waxay jecel yihiin in ay iyagu hadlaan. Lambar 4, dhoolacadee. Marna farxaddu kama marna qaabka uu yahay wejigaagu. U fur dadka wejigaaga, u dhoolacadee, noloshuna waa ay ku dhoolacadaynaysaa. Lambar 5, yeelo dabeecad dabacsani ah. Dabacsanidu waa dabeecad macaan. Kolka aad ganacsigaaga joogtid ama aad la dhaqmaysid saaxiibada, waa mid kuu soo jiidi karta dadka. Sidoo kale, sida adiga aad farxadda dadka u dareensiiso, si la mid ah ayaad u helaysaa. Lambar 6, kor u qaad kalsoonida naftaada. Weligoodba waxa ay leeyihiin kuwa guulaysta kalsooni nafeed oo sarreysa. Haddii aad doonaysid in heerarkooda oo kale aad ka gaadhid guusha, waxaa laga rabaa in aad bilowdid dhismaha kalsoonida aad ku qabtid naftaada, waxaana ay ka mid tahay waxyaalaha qofka u soo jilaaba farxadda. Lambar 7, faham sida loo xalliyo isjiidashada ama doodaha. Meelna kama marna loolan iyo tartan. Suuragal in ay kugu dhaliso walwal, muran iyo isqabqabsi idin dhex maray adiga iyo lamaankaaga, saaxiibkaaga, shaqada ama dadka kale. Haddaba si aad uga gudubtid una heshid maslaxadda guud, marka hore waa inaad fahansan tahay sida loo xalliyo doodaha. Lambar 8, u madax bannaanow go'aankaaga. Dadka guulaystay waxa ay leeyihiin awood go'aan qaadasho oo iyaga u gaara. Laakiin arag, qof kasta oo fashilma waxa uu markiisii hore ku socday fikrad qof kale uu leeyahay, waxaana uu ku meelmaray go'aan qof kale uu leeyahay. Sidaa awadeed waa uu guuldaraystay, balse adigu markasta ahmiyadda saar inaad ku socotid go'aankaaga. Lambar 9, samee aqoon kororsi joogto ah.
aqoon barashadu ma ahan xirfad dhamaata ama heer laga gudbo. kolkastoo aad gaabis ka noqotid barashada wax cusub waxaa badanaya waqtiga aad gadaasha ka joogtid dunida hore u socota. markasta goob kasta xitaa haddii aad ku sugan tahay badda gunteeda isku day inaad baratid wax cusub. lambar 10 xadid yoolkaaga qorsheena khidada aad ku xaqiijin lahayd. dadka badankiisu waxa ay daba ordaan khiyaali waxa ay farxadda moodaan mugdiga bilowgiisa sababtoo ah iyaga oo aan xaqiijin oo aan xadidin hadafkooda ayay xamaasadi qaadaa. haddaba adigu ka digtoonow arrinkaasi. xadid yoolkaaga deedna qorshee qaabka iyo jihada aad u mari lahayd. lambar 11 si wanaagsan u fakar. haddii aad diiradda saarto inaad si xun u fakarto waxaad si dhaqso ah aad u lumin doontaa wax walba oo aad qabatid. si fiican u fakar waxaad sii wadi kartaa inaad raadsato fursado badan oo faa'iido ku leh. lambar 12 hilmaan wixii tagay si walba oo ay u xumaayeen xoojina farxad gelinta iyo hagaajinta mustaqbalkaaga. 13 habarbar dhigin naftaada dadka kale xitaa lamaankaaga habarbar dhigin kuwa dadka kale sababtu waxa ay tahay dadku isku wada nolol ma ahan. adigu sida aad ugu fiican tahay wax akhriska dhammaantood uguma fiicna waxa aad leedahay hanti ha kuu noqdaan iska daa kuwa dadka kale. lambar 14 noloshu waa mid kooban ha ku lumin inteeda wanaagsan nabcaashaha dadka kale. 15 ahaw mid ku socda waqti habsaankaaga oo bata iyo dib u dhacaaga waa calaamad ixtiraam yari. dadkuna waa ay necab yihiin habsanka badan. haddaba ku soco waqti wax badan oo ixtiraam iyo farxad ayaad ka helaysaa saaxiibadaada goobtaada shaqada iyo meel kasta oo aad ixtiraamtid waqtiga ballankeeda. 16 si fudud ula qabso isbeddelka. noloshu ma ahan mid neg waa mid isbedbedel badan. nolosha dunidu ma ahan mid ku socota hal qaab waa mid si joogto ah isu bedbedesha. kuwa guulaystay waxa ay yaqaaniin dhab ahaanshaha isbeddelka nolosha si sahlan waa ay ula qabsadaan. sidaa darteed haddaba baro sida ugu fudud ee aad ula qabsan kardhid isbeddelka nolosha. 17 ma jiro qof laga mamnuucay khalad laakiin qofka garaadka fiican leh oo qura ayaa yaqaan sida loo qirto qaladka deedna yaqaan sida looga shaqeeyo dib u hagaajinteeda. 18 hal abuur iyo il wax ikhtiraacda lahaw. Bill Gates, Mark Zuckerberg iyo kumanaanka kale ee maanta heerka ka gaaray horumarna ku sameeyay naftooda waxa ay ka sameeyeen laanshaha ilka faa'iideysata fursadaha u baahan kamira dhalinta. waxa ay leeyihiin maskax wax ikhtiraacda. haddaba adigu ku dadaal in ay yihiin indhahaagu kuwa kala furan waad heli farxadda nolosha tan adiga khaaska ku ah waliba. 19 cafi dhammaan shardi la'aan. cafiska aad cafisid qof waa farxad noloshaada ku soo biirtay. hor ayaad ka ahaanaysaa caqdad iyo boog aad qof caloosha ugu haysid. 20 samee dheelitirnaan shaqada iyo nolosha. farxaddu kuma eka shaqada oo kaliya iyo helitaanka lacago badan sidoo kale waxaa qayb ka ah waqti la qaadashada faamilkaaga saaxiibadaada iyo qaraabadaada. fadlan ugu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.